السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena soo aynu maanta idiin soo gudbin doono hadii Allah awoodilay ka raali noqdo. Qodobada muhiimka ah ee barnaamijka saaka ayaan idinku hayo waxaa kamid ah safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay caasimadda waddanka Liibiya ee Tripoli oo beenisay war culus oo maarmahan si weyn loo hadalhayay kaasoo ay faafinayeen qaar kamid ah warbaahinta waddanka Mareykanka. wararka kale ee barnaamijkan idinku soo gudbinayo waxaa kamid ah ciidamada Israa'iil oo saaka sheegay in xuutiga gantaalo uu soo riday uu mar kale ku soo weeraray Israa'iil. haddaba maxaa dhacay markii weerarka uu dhacay kadib iyana waxaan idinkaga hayaa tafaasiil. warbixin cusub oo yaraan laga helay dhanka ciidamada Israa'iil waxay sheegayaan in ciidanka iyaga isdilaya ay aad u kordheen muddadii ugu dambeysay. haddaba imisa ayaa lagu sheegay tirada ciidamada isdishay bilihii la soo dhaafay. warbixin xasaasi ah oo arrinka ku saabsan iyana barnaamijkan idinku hayaa. Israa'iil oo si xawli ah u wada duqeymaha iyo xasuuqa ay ka geysanayso sida warbaahintu ay sheegayso gudaha magaalada Gaza. wararkii ugu dambeeyay Gazana waan idin hayaa. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena subaxnimo ee saakay ku soo gudbin doonaa. inta aan ku jirno haddii warar cusub ay soo kordhaan waan idinla socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan subax wanaagsan. waa barnaamijkeennii subaxnimo waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijka xaaladda magaalada Gaza xalay ilaa saakay si xun ayay ciidamada Israa'iil u duqeeyeen. meel teendooyin ah oo ay deganaayeen dad barakacayaala ayaa la sheegay in diyaaradaha dagaalku ay dhowr gantaal ku dhufteen halkaasoo uu dabku isqabsaday. haddaba tirada dadka dhintay saakay keliya saakay markuu waagu bariyay fajarkii ilaa hadda imisa ayay maraysaa. haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu leeyahay 106 qof ayaa shahiiday magaalada Gaza laga soo bilaabo fajarkii maanta ama saakay aroortii laga soo bilaabo ilaa hadda 106 ayaa dhimatay. sida ay sheegayaan qaybaha caafimaadka ayaa waxay sheegeen in ay 106 qof oo Falastiiniyiin ah ku dhinteen weerarada dhinaca cirka ah ee Israa'iil ay ku haysay saacadihii la soo dhaafay Gaza. waxaana la sheegay 50 kale iyaguna inay ku shahiideen ama 50 kamida dadka inay ku shahiideen deegaanka la yiraahdo Khan Yunis meel teendooyin ah oo ay deganaayeen. tirada guud 106 50 kamida hal meel ay ku dhinteen. Khan Yunis meesha la leeyahay meel teendooyin ah oo ay dadku markaa ku jireen ayaa la duqeeyay sida la leeyahay. marka xaaladdu faraay ka sii baxaysaa way sii adkaanaysaa. golaha wasiirada Israa'iilna kulamo ay leeyihiin cadaadis fara badan oo caalamkuna waa saaran yahay la leeyahay war fura gargaarka dadka dhimanaya dhibaatada joojiya. marka nimankanu way ka dhaga furaysanayaan sheekadaas. dhanka kale madaxweynaha Masar Cabdifataax Al-Sisi ayaa mar kale wuxuu u diray fariin Donald Trump oo uu sheegay inay tahay in arinta Gaza aan indhaha laga qarsan karin ay tahay in Israa'iil cadaadis u saaro si gargaarka iyo dawada iyo alaabta waxa ay u baahan yihiin isbitaalada loo geliyo magaalada Gaza maadaama halka ay duqeymo xun ka socdaan dagaalkana in la joojiyo. haddaba arrimahaas oo dhan way socdaan. Yurub oo dhan way qaylinaysaa ilaa 7 dawladood oo Yurub ah ayaa waxay leeyihiin waxa kan wax la fiirsan kara ma ah. laakiin intooda dhan marka la isku daro sheekadooda af la taaganta wax kale ma jiraan. Israa'iilna af maba dhageysato hawsheeda iska wadataa. marka qodobkaas halkaas mara annaguna de waa u ducaynaynaa idinkana u duceeya reer Gaza in Ilaahay dhibaatada iyo mushkiladda uu ka dulqaado. weli waxaynu ku jirnaa wararkii Gaza. safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Tripoli ee caasimadda waddanka Liibiya ayaa war soo saartay. haddaba safaaraddu marka waxay ka jawaabaysay warbixin qaar kamid ah warbaahinta Mareykanku ay ku sheegayeen saacadihii la soo dhaafay in Mareykanka 1 milyan oo qof dad ku dhow uu Gaza ka qaadayo oo uu Liibiya dejinayo. Liibiyana uu kaga bedelanayo lacag bilyanisa oo bangiyada Mareykanka ku xaniban oo Liibiyaanku ay leeyihiin in markaa loo fasaxi doono.
sheekadaas marka aadaa marka loo hadalay waxaana la yidhi waxaa laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Donald Trump. haddaba markii arrinkaa uu dhacay safaaraddii marka la fahadiya u baqday dad badan oo liibiyaana oo hanjabaya ayaa waxay yidhaahdeen wallaahi hadda dadkii masaakiinta intaa xoog ku soo rartaa halkan keenaysaan safaaradihiina iyo wixii Maraykan meeshaan joogaan annaguna dhagaha ka garaacayna nagtaa ka saarayna. safaaraddii marka warbixinay markiiba la soo booday. haddaba marka aan odaytuso safaaraddu waxay leedahay warbixinta maaragtay ku saabsan dadka reer Gaza in Liibiya la geynayo inay tahay warbixin been ah oo aan waxba ka jirin taasoo ay u qoray telefishinka la yiraahdo MBC News. safaaraddu marka warkaas soo saartay waxay tiri waa been wax ka jira ma jiraan. telefishinka Mareykanka MBC News la yiraahdo ayaa warbixintan qoray wax ka jira maamulka Trumpna hawsha kuma jiro ee nimanyo naga jooga nimanka Liibiya kana niman imtixaan waa niman caadi ma aha iyagana. marka safaaradii marka la feeday u baqdaa way cabsataa leeyahay hawshaas markii ay halka marka ka dhacday. haddaba waxaa noo soo socda xuutigii oo saakay markale nagta ka saaray Israa'iil oo kala carar uu ka dhacay saacada ka hor. laakiin markan waxaan u gudbaynaa sheeko cajiib ah oo laga qoray arinta ku saabsan ciidamada isdilaya ciidamada Israa'iiliyiinta ah ee iyaga isdilaya ninka qorigiisu soo qaadana madaxu iska saara nagtu iska saara. tiradii marka waa badataale warbaahintii Israa'iil marka waxay soo heleen xogo ku saabsan sanadkii hore kaliya inta isdishay. sanadkan markii loo tagay ciidanka Israa'iil oo baaritaanka la sameeyay tirada waaba ka sii badan tahay iyaguna waa qarsadeen. haddaba marka sheekadu marka waxay noqotay mid sida volkaanihii oo kale u qaraxday oo miidiyaha aad ay uga hadlayaan Israa'iil gudeed ay leeyihiin dagaalkan musiibo kale wadaa. askari kasta oo dagaalamaya wuxuu ku fakarayaa markay xaaladdu ka hor timaado inuu isaga isdilo. marka sheekadaasuna marka waxaa leeyahay waa musiibo kale oo maartay qulubtooda Ilaahay uu cabsi iyo argagax ku riday nimanka dadka laynaya. haddaba marka ardaytuso Al Jazeera waxay leedahay waxaa naftooda dilay oo iyaga iskhaarijiyay 35 askari oo Israa'iiliyiin ah markii dagaalka uu soo bilowday. joornaalka la yiraahdo Haaretz oo baaritaan ku sameeyay arrinkan oo dhanka militariga baaritaan ku sameeyay wuxuu leeyahay 35 inay tahay sanadkii 2024 laakiin waxaa la sheegayaa in kumanaan kale oo ciidanka Israa'iiliyiinta oo Gaza ku sugan ay markaa ku dhaceen cudurro dhanka nafsiga ah ama ay isku buuqeen kuwaasoo mar walba iyaga isdilaya. haddaba warbixino kale waxay sheegayaan in ciidamada Israa'iil ay diideen inay baaritaanka qayb ka noqdaan oo ay warbaahinta u soo gudbiyaan inta ciidan ee isdishay sanadkan gudihiisa. laakiin warbixino kale ayaa waxay sheegayaan in tiro fara badan oo ciidanka ka tirsan ay sanadkan kaliya 2025 iyaguna ay isdileen. dhanka kale waxaa la sheegayaa ciidamada kala shakiga iyagana isku dila inay tiradooda sii kordhayso oo furmaha dagaalka ku jira. sheekadu marka halkaas ay mareen warbaahintu waxay leeyihiin dagaalkan wax kale soo wada askartan xataa haddii dagaalka laga soo wado oo dib dalka loogu soo celiyo oo dadkii shacabkii maba ku dhex noolaan karaan ilay totally dadkaasu maskaxiyan way wareersan yihiin. xataa familiyadooda iyo caa'iladooda iyo qoysaskooda lama noolaan karaan waa in meel gooniya la dejiyaa ilay. haddaba sheekada iyaduna soo korortay qadar xayeysiisa kadib xuutiga iyo arrimihiisa ayaynu kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan. waa barnaamijkeennii subaxnimo saakay waa axad qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaynu maraynaa. qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa nimankii xuutiga ahaa ayaa mar kale waxay bilaabeen inay duqeeyaan Israa'iil. saaki waxay yidhaahdeen saaki mar kale ayaanu nagta ka saarnay Israa'iil. haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray jariirada la yiraahdo Al-Quds ayaa goordhow qortay ciidanka Israa'iil waxay sheegeen inay ka hortageen gantaal ay sheegeen inuu ka yimid dhanka iyo Yemen in laga soo riday oo markaa ay ka hortageen. haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo axada waxay sheegeen inay ka hortageen gantaal ka yimid dhanka Yemen kaasoo Israa'iil markaa ku wajahnaa meel bartilmaameedya
waxaa la sheegay in uu isqabsaday siiriga digniinta dhowr meelood oo ka tirsan gudaha Israa'iil. jamaacada xuutiyiinta Yemen ee Ansaarullah oo iyagu markaa la sheegay inay iskaashi la leeyihiin Iiraan ayaa waxa ay bartilmaameedsadaan eeraboorka Ben Gurion kaasoo ku dhow magaalada caasimadda ee Tel Aviv. waxaana la sheegay halkaa in 2 gantaal ay ku dhufteen nooca balaastiga ah. waxaana la sheegay in eeraboorka uu xarmay muddo saacado ah oo howlihiisii dhan ay joogsadeen. marka waxaa leeyahay nimankii xuutiga ahaa gantaalahoodii markan waaba dul taagan yihiin Israa'iil. awal waxaa qashqashaadayay oo meel dhexe u fadhiyay maraakiibta Mareykanka kuwiisoo meesha kama bixin. nimankan marka hadda siday tahay u adeeganayaan lagu leeyahay. markaasaa Israa'iil hadda waxay waaye keligeeday ku noqotay. markii hore Mareykanka iyo xuutiga iyo ayada dagaalku saas u ahaa, laakiin hadda maadaama Mareykan meeshii uu uga baxay keligood ay ku soo hareen iyaga iyo xuutiga. marka xuutiga alaabtiisu markuu soo fasaxo Israa'iil gudaheeda la isku wareysanaad awal qaara badda cas iyo meelahan iyo looga reebi jiray. marka hadda saaka waxaa leeyahay gantaalahaas ay mar kale ku soo weerareen inkastoo tafaasiil badan Israa'iil gudaheeda aan laga helin, laakiin waxaa la sheegayaa gantaaluhu inay gaareen meelihii ay markaa xuutigu ay ku rideen, inkastoo ciidamaduna ay leeyihiin waa ka hortagnay oo waa qarxinay. laakiin dhowr qof oo la wareysanayay warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegayeen inay maqlayeen qaraxyo waaweyn oo dhacaya, marka iyagu aanay sheegi karin waxa ay ahaayeen.